Assalaamu calaykum. Hagaajinta iyo horumarinta naftaada. Ugu horeyn ma jiraan adduunkan wax sugan ee isbedel joogto ah ayaynu ku jirnaa oo aynu ku noolnahay. Sidaasi daraaddeed waxaa loo baahan yahay sidii loola qabsan lahaa isbedeladaas. uuna qofku si joogto ah isugu horumarin lahaa naftiisa. Naftaada oo aad hormarisaa waxa ay kaa caawinaysaa in aad noqoto guulaystahankiisa iyo hamigiisaba si fudud oo dhoola caddayn leh ku gaara. Waxaa kaloo jira baahi joogto ah oo ah dhinaca xirfadaha iyo macluumaadka intaba. Qof kastana wuxuu u baahan yahay in uu joogteeyo horumarinta naftiisa iyo helidda xirfado iyo macluumaad ku filan. Culaysyada nolosha soo wajaha waa ay fara badan yihiin. Sidaasi daraaddeed waxaa u baahan tahay in aad mar kasta baratid tabaha iyo sida ugu fudud ee aad noloshaada ugu gudbin karto guushaada, caqabadahana aad uga tallaabsan karto. Tusaale ahaan, walaalkayow, suuqyada waxaad ogaataa in ay yihiin kuwa mar waliba isbedbedela. Waxa ayna isla bedelaan hadba waxa cusub ee ku soo kordha. Naftaaduna waxa ay isku bedbedeli doontaa sidaa oo kale. Ha ku dhaganaan xirfad aad mar hore lahayd ee baro xirfado kala duwan si aad noloshaada u hormariso. Waxaan halkaani kugu soo gudbin doonaa 5 tiir oo aad noloshaada ku hormarin karto. Hadafka iyo hanka aad tiigsanaysidna aad ku gaadhi karto haddii aad si toos ah u abaarto cabsida iyo walwalka iyo walbahaarka aad guuldarrada ka qabtane aad ku beddesho dhoola caddayn aad u dhoola caddayso guuldarrada, cabsida, argagaxa iyo weliba niyadjabka. Lambarka 1 waa in aad istaqaano adiga. Qofku waa in uu mar waliba isweydiiyaa kuma ayaan ahay, maxayse tahay awooddayda, xirfad noocee ah ayaan leeyahay. Haddii uusan qofku su'aalahaas jawaab rasmi ah u helin, waxa ku adag in uu gaadho hadaf iyo horumarinta naftiisa. Qodobka 2 waa in ay ku caddahay waxa aad ka damacsan tahay noloshaada. Haddii aadan garanayn waxa aad ka damacsan tahay noloshaada, ma ahaan doontid qof noloshiisa hormariya ee waxaad ahaan doontaa qof uun mar waliba ka walwala halka uu socdo, higsigiisu halkuu yahay, waxa uu doonayo, meesha uu taagan yahay. qiimo ahaanna waxaad ahaan doontaa qof bulshada dhexdeeda ku dhex liita. Qodobka 3 waa in aad taqaanid sida aad ula dhaqmi lahayd naftaada iyo dadka kale intaba. Naftaada oo aad la dhaqantaay waxa ay kaa caawinaysaa in aad yeelato adkaysi fara badan, dulqaad iyo weliba la xiriir fiican. Dadka oo aad la dhaqantaane waxa ay kuu fududaynaysaa in aad howlo aad leedahay ee waqti fog kugu qaadan lahaa aad ku soo qabato waqti yar oo kooban, adiga oo dantaada iyo awrkaagaba ku soo kacsanaya dadka kale. Haddaba walaalkayow amaba walaashayey, haddii aadan ahayn qof dadka si wanaagsan ula xiriira, bilow oo bara maantaba xirfadaha la xiriirka dadka kale, waayo taasi waxa ay kaa caawin doontaa in aad gaadho hamigaaga mid dhow iyo mid fogba. Qodobka 4 waa in aad leedahay xirfad ay kaga fiican tahay dadka kale.
qofku waxa uu iskula muuqan doonaa markii uu leeyahay xirfado u gaar ah qof qab ahaan iyo dadnimo ahaanba u karaamaysan oo isla weynida ma aha midda ah in aad adiga dadka oo dhan aad iskala weynaataa balse qab ahaan ayay naftaadu ahaan doontaa mid kalsooni fara badan ku qabta in ay wax waliba oo dunidaani dul saarani ay karto gaaritaankooda sidaasi daraaddeed walaalkayo waxa kugu waajiba in aad barato xirfado aad kaga duwan tahay mujtamaca kale baro xirfad waliba oo kula muuqata in ay ku gaarsiin karto hadafkaaga qodobka shanaad iska ilaali baryada dadka kale baryada dadka kale ma wanaagsana diin ahaan iyo mujtamac ahaanna waa mid cayb ah qof lixdiisa lixaad qaba aqligiisuna taam yahay cilmina baran kara waqtina haysta da'diisuna ay tahay da'dii uu wax ku qabsan lahaa in uu shaxaad mujtamaca kula dhex noolaadaa waa wax cayb ah soomaaliduna waxa ay tiraahdaa bugto badan iyo baahi badan waa la isku nacaa taasi waxa ay kugu dhiirin gelinaysaa in aad abuuratid ilo dhaqaale maxaa yeelay haddii aadan lahayn lacag amaba ilo dhaqaale amaba meel ay lacag kaa soo gashaay waxaa kugu adkaan doontaa in aad hamiyada waaweyn ee fog ee mustaqbalkaaga aad ka hiigsanaysid aad gaadho haddaba qofku waa in uu iska iloobaa si uu noloshiisa u hormariyo walwalka iyo walbahaarka cabsida iyo argagaxa qof waliba oo guuldarrada u dhoola caddeeyaa waxaa u fududaanaysaa in uu gaaro guul rasmi ah oo la taaban karo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu